بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لما أرضيدا يدودوينها الصوماليات برشاد عشرة دي لغات إنجليش كا يدولي وان كاريغان ينبوغي براكتس and progress وحان سيمرين الليسن 76 step by step يدو عشرة فربضان وراي عن سوق هذا أنا ياردقا جعلنو عشرة دان ستو سوقو فايديستو وكلا سوق بلعبي الليسن 1 إلا الليسن 76 wixii exercise ka danaynaya ayaga toos ayay la soo xiriiri doonaan directly number ama Gmail Yahoo bay la soo xiriiri karaan ayagoo halkaas ka heli doona professional page waa English language and computer teaching casharadii kala duwanaa marka step by step Maxamed Iglan waxaan la soo xiriiri doonaa directly number iyadoo casharo kala duwan oo aan soo qaadanay marka April Foolish Day baan sii maraynaa ardayda ka barata YouTube-ka iyo Blogspot casharada kala degtay waxay ka faa'iideysan doonaan exercise-ka imtixaanka inay iska qaadaan kaliya ayaa u dhiman ayaga ardayda tooska u dhigata casharada tooska buugta grammarka iyo buugta kala duwan qaata buugga development oo ka tirsan silsilada practice and program buugtii ka tirsanaa silsilada new concept English ardayda dhigata first ardayda kala dhigata buugga practice and progress live ka u dhigata ayaga toos bay la soo xiriirayaan meeshooda ay ka sii wadayaan laakiin kuwa ayaga YouTube-ka iyo iskuulada kala ka bartay waxay ka faa'iideysan doonaan exercise-ka inay iska qaadaan kaliya okay ida cashar kala duwan hore aan u soo qaadanay marka waxaan maanta arki doonaa lesson 76 April Foolish Day koodii April baa waxaa loo yaqaanaa gaalada waxay u taqaanaa maalintii doqomada waqooyina waxaa loo yaqaanaa maalintii nacaska koonfurta Soomaaliya waxaa loo yaqaanaa maalintii doqomada okay April Foolish Day iyadoo casharo fara badan hore aan u soo baranay marka waxaan la soo xiriiri doonaa somalistaronline.blogspot.com waxaan kaloo la soo xiriiri doonaa Yahoo wixii imtixaanka danaynaya iyo ardayda kala duwan oo jecel casharadan imtixaanaha ah marka maanta casharadii lesson 76 baan sii arkaynaa marka step by step dhammaan ardayda April Foolish Day to end haddii aan soo gabagabeeyo our special news bulletin warbixinteenii koobnayd side waxaa yiri the voice codka of the television announcer ninka hadlaya TV-ga we are taking you waxaan idin geyn doonaa ama wariyaha ayaa yiri to end haddii aan soo gabagabeeyo our special news bulletin qodobadii warkeena ugu muhiimsanaa side waxaa yiri the voice codka of the television announcer ninka televisionka ka hadlaya ama wariyaha we are taking you waxaan idin geynayaa to the Macrona villages beerihii makaroonada of Calabria ee magaalada la yiraahdo Calabria macaronida has been grown waxa laga beeriyay in this area goobtan for over in ka badan 600 years lix qarni two of the leading grows labada wax soo saarayaasha kuwa ugu horeeya hormuudka laba kamid ah hormuudkoodii laba kamid ah beeralayda hormuudkoodii oo la kala yiraahdo Giuseppe Moldova and Ricardo Brabant tell me ayaa ii sheegay haddii aan ahay wariyuhu leeyahay tell me ayaa ii sheegay that they have been expecting inay rajeynayeen this bleeding crop mira heer sala ah this year sanadkan and harvesting waqtigii goosashada beerahana has begun waa uu bilowday earlier goor ka horeysay than usual sida caadada ahayd here halkan you can see waxaad ku arki kartaa two workers laba shaqaala ah who kuwaasoo between them have dhexdooda ku haya just finished inay soo dhamaystireen kitchen jaridii 3 cartloads 3 gaari faras Soomaaliduna waxay tiraahdaa 3 gaari dameer oo kale meeshaan oo kale 3 cartloads 3 gaari faras inay soo jireen oo ah marka of golden brown macaron stalks mirihii ama laamihii buniga ahaa iyo dahabiga ahaa brown waa buniga ahaa golden mirihii dahabiga ahaa oo brownka ahaa ama kafeyga ahaa oo macaronada stalkska ahaa oo mirihii ahaa buniga iyo dahabiga isugu jiray the whole village xaafadoo dhami has been walking while shaqeynayeen day and night habeen iyo maalin gathering ayagoo isu soo ururinayo and threshing qalajinayo this year crop miraha sanadkan before ka hor the September rains intaan la gaarin roobabka September on the right dhinaca midig
you can see waxaad ku arki kartaa Mrs. Brabant gabadha la yiraahdo Mrs. Brabant gabadha la yiraahdo herself nafteeda she has been helping iyadoo caawinaysa her husband ninkeeda she has been helping iyadoo caawinaysa her husband ninkeeda for 30 years soddon sano now haddana way caawinaysaa wey now haddana Mrs. Brabant gabadha la yiraahdo Stockton waxay la hadlaysaa Stockton waxay la hadlaysaa to the manager maamulaha of the local factory warshad xaafada ku taala ama warshad localya where halkaaso the crop miraha is processed lagu warshadaynayo this last scene muuqaalka ugu dambeeyo this last scene muuqaalkan ugu dambeeyo shows waxaad ku arki kartaa S iyo C markay israacdo waa scene oo kale okay this last scene muuqaalka ugu dambeeyo shows waxaad ku arki kartaa shows you waxaad ku arki kartaa what will happen waxa dhici doona at the end dhamaadka of the harvesting ee goosashada beeraha marka la goosto waxa dhici doona oo maxaa dhici doona the famous Calabria macaroni eating competition tartan dhaxmari doona tartankii cunitaanka makaroonada ayaa ka dhici doona halkaas Signor Fratelli ninka la yiraahdo the president kaasoo horyaalka haysta competition tartanka horyaalka kaasoo haysta has won ayaa ku guuleysan jiray wonait ku guuleysan jiray every year sanad walba since ilaa iyo 1961 and iyo the end dhamaadka our special bulletin qodobadii warkeena bulletin waa qodobadii warkeena for today ee maanta Thursday waa maalin khamiisa April 1st waa 1 April we are returning waxaan idinku celin doonaa to the studio TV ga idaacada okay iyadoo casharo kala duwan hore aan soo baranay markaa Somali Star Online Training English Language and Computer Teaching step by step dhamaan ardayda Somali Star Online Training dadweynaha Soomaaliyeed casharada kala duwan oo internetka kala socdo ayaga halkaas ayay ku soo dhawaan doonaan somalistar.online.blogspot.com iyadoo halkaasna aan kala degi karno casharo kala duwan haddii aan ka weyno meelaha kale okay somalistar.online.blogspot.com waxaan ka degsan karnaa fiidiyoyada aan ugu talagalnay casharadan English language halkaan wixii macluumaad ah ayaan isku sii weydaarsan karnaa Somalistar Online okay ida casharo kala duwan hore aan soo qaadanay waxaan sii maraynaa April Foolish Day waa maalinkii nacaska ayaa inoo qoran halkan gaaladu waxay tiraahdaa maalintii beenta 1 April laakiin maanta maxaa inoo qoran maalintii nacaska oo loo dabaaldego waliba somalistar.online.blogspot.com iyo somalistar@yahoo.com waa la soo xiriiri doonaa wixii macluumaad ah waxaan soo gudgalayaa cashirkeena maanta marka the end our special news bulletin qodobada warka maanta ugu muhiimsan the end haddaan soo gabagabeeyo yiri our special news warbixinta bulletin qodobada warbixinta maanta side waxa yiri the voice codka of the television announcer ninka televisionka ka hadlayay we are taking you waxaan idin geyn doonaa to the macaroni village beerihii makaroonada of Calabria ee magaalada Calabria oo England ku taala macaronida has been grown waxa laga beeriyay in this area goobtan for over in ka badan 600 years 600 sano two of the leading growers laba kamid ah labada wax soo saarka hogaamiyaasha ugu horeeya leading waa hogaamintii lead bay ka timid leading labada ugu soo horeeya hogaamiyaashu ah beeraleyda oo la yiraahdo Giuseppe Moldova and Ricardo Brabant tell me ayaa ii sheegay uu yiri that they have been expecting in la rajaynayay the bleeding crop mira heer sara is bleeding waa heer sara miraha the bleeding crop mira heer sara his year sanadkan in la helo aan harvesting xilligii beer goosashada harvesting waa goosashada Soomaalidu waxay tiraahdaa beer goosiga harvesting goosashada has begun waa uu bilaabay earlier goor ka horeysay than usual sida caadada ahayd here halkan you can see waxaad ku arki kartaa two workers laba shaqaalaad ku arki kartaa wariyaha yiri ama ninka warka aqrinayo who kuwaasoo between dhexdooda ay taalo them who kuwaasoo between them half dhexdooda ku haya just finished inay maanta soo dhameystireen ama just finished hadda inay soo dhameystireen catching jaridii 3 cartloads 3 gaari faras 3 cartloads 3 cartloads 3 gaari faras ama 3 gaari dameer badada doonto of golden brown macaroni stalks laamihii buniga ahaa iyo dahabiga ahaa macaronida ahaa
the whole village xaafadoo dhami has been working waa ay shaqaynayeen day and night habeenii maalin gathering ayagoo isu soo ururinayo ansration qalajinayana haadinayo qalajinayo this year crop mirihii sanadka before ka hor the September rains intaan la gaarin roobka September on the right dhinaca midigna you can see waxaad ku arki kartaa Miss Perpent gabadha la yiraahdo herself nafteeda she has been helping iyadoo caawinaysa her husband ninkeeda iyadoo caawinaysa for 30 years soddon sano muddo ah now haddana way caawinaysaa weli now hadda Miss Perpent gabadha la yiraahdo Miss Perpent Stocking waxay la hadlaysaa to the manager Stocking waxay la hadlaysaa to the manager maamulaha of the local factory warshad xaafada ku taalo ama warshad maxalliya weer halkaas oo the crop miraha is processed lagu warshadaynayo marka this last scene muuqaalka ugu dambeeya shows wuxuu ku tusinayaa what will happen waxa dhici doona at the end dhamaadka of the harvest ee goosashada waqtiga beeraha la goosto harvest waxa weeye waqtiga beeraha la goosanayo harvest the famous maxaa dhici doona marka waxaa dhici doona the famous Calabria macaroni eating competition tartanka macaroni cunista ee magaalada Calabria ay caanka ku tahay Signor Fratelli ninka la yiraahdo the president kaasoo ah badalka ama kaasoo ah horyaalka the champion horyaalka has won ayaa ku guuleysan jiray every year sanad walba since ilaa iyo 1961 and iyo that end is inta ayuu ku soo dhamaanaya the end inta ayaan ku soo dhameystiray our special bulletin qodobadii muhiimka ahaa for today maanta Thursday waa maalin khamiisa April 1st April koodeedii we are returning waxaan idinku celin doonaa to the studio-ha TV-ga ama studio-ha idaacadda idoo casharo kala duwan hore aan u soo baranay Somali Star Online Training English Language and Computer Teaching casharadii taxanaha ayaa weli ku guda jirnaa dhammaan ardayda Somali Star Online Training Professional English and Computer Teaching waxaan la soo xiriiri doonaa direct number 1 introduction xamudaro loo yaqaan Maxamed Iglan casharadii kala duwan hore aan u soo qaadanay marka halka ayay sii marayaan maanta inaan sii qaadano April Foolish Day oo ahaa lesson 76 iyadoo casharo kala duwan ay noo soo socdaan dhammaan waxaan la wada socon doonaa marka sidaa darteed fi amaan Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu